بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين يقدم بيسي عشر كيني يقدم بي أما إنه شوكتي iyadoo islaamay Hamza bin Abdul Muttalib oo ay ka dhalatay cadaadiskii lagu hayay rasuulka kaleey salaatu wassalaam isagoo aan ku talagelin ara uu ka carooday Abu Jahl markii uu inanka uu adeerka u yahay waxyeelay ee uu runtii ma garatay ceebeeyay Allahumma salli ala Muhammadin oo aad u aflagaadeeyay jawaab uu ka jawaabayo ayaa ilaahay sabab uga dhigay in uu ku biiro xaqbadii rasuulka kaleey salaatu wassalaam walidalik muslimiintu iyadoo Zubayr bin Awwam iyo Sa'd bin Abi Waqqas iyo saxaaba runtii kartidooda iyo jihaadkooda ku weyna ay jireen haddana Allahumma salli ala Muhammadin faa'iido badan bay soo kordhisay in Hamza bin Abdul Muttalib uu ku soo biiro tiimkii ugu horeeyay nabiga kaleey salaatu wassalaam oo hogaaminayay waxa xusid mudan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo kamid ahaa hogaankii Quraysheed ee dagaal ogayaasha ahaa waqtigaasi fardafuulka iyo dagaalka loo haysan jiray وفعلا dadkii ugu dhibka badnaa kamida rasuulka kaleey salaatu wassalaam ayaa isaguna ku soo biiray 3 cisho kadib gacanta rasuulka kaleey salaatu wassalaam walidalik sababtii uu ku soo islaamay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sabab badan bay culimadu sheegan laakiin mid kamida ayaynu runtii tilmaami doonaa Umar ibn Khattab waxna waa akhriyi jiray waxna waa qori jiray ولذلك دور غور ayaa markii uu maqlay arinta rasuulka kaleey salaatu wassalaam ayaa kacbada uu tagay markaas uu dhageystay quraanka ولذلك maadaama uu ahaa nin waxna qoro waxna akhriya yaqaana gabayadii carbeed iyo luqada carabiga ku wanaagsan wuxuu kala garanayay farqiga u dhaxeeya luqadii shucarada iyo luqada quraanku ku hadlayo isagoo dareenkiisa taasi ay ku jirto oo quraanka mucjisnimadiisa marka horeba la yaaban ayaa nabigu kaleey salaatu wassalaam majlis kacbada uga duceeyay Allahumma a'is al-islam bi ahad al-umarayn ilaahay diintani ka maarmi mayso labada umar mid kamida oo ficlan islaamku waxyaaluhu diimaha kale kaga hormaray waxa kamida inuu qiro qofka bini aadamkii fadliga uu leeyahay haba noqdo qof ka soo horjeede walidaalka rasuulku kaleey salaatu wassalaam xadiiskan waxa uu ku cadeynaya Abu Jahl oo cid ugu necba oo cid ugu foga ugu dhib badna rasuulku kaleey salaatu wassalaam ayaa rasuulku wuxuu sheegay in uu yahay labada nin ee aanay diintu ka maarmin mid kamida marka Umar bin Khattab iyo عمر بن هشام لبضع عمر واللبضع وي وعمر بن هشام وابو الجاه يردي عمر بن الخطاب روايات قروحي اورانيان الهي لبضع سكي اتجعشهي دينتو كمارمي ميسه ee ku soo dar ولذلك waxa weeye halka waxaanu ka qaadanaynaa oo runtii ku cad in qofku marka uu dadka wanaaga ugu yeedhayo in uu xusho dadka uu isleeyahay waa dadka bulshadu ay ku kalsoon tahay ama runtii aqoon leh ama yaani mawaahibta ilaahay baa bixiya hantida isaga bixiya cilmiga isaga bixiya kartida isaga bixiya wax qabadka isaga bixiya kasto dadku ay sameeyeen laakiin haddana way ku sii kala wanaagsan yihiin yaani dadka fariidka kelmadda fariid waa maxay waa dhif weey ninkaas shay buu dhif leeyahay oo uu gaar leeyahay dadka anfaca ereyga fariidnimadu ka weey يعني فريد من نوعه شيء قاس وشيء وحاسي لكلستي أي الله يلاحظه ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه isaga oo
ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka oo uu rasuulka ka bowsaday oo meelaha qaarkood uu ka dhagaysan jiray ay qalbigiisa ku wareegayaan ayaa maalin maalmaha ka mida in aad looga cawday rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika hogaankii sare ee quraysh u dagaalami jiray ayuu ka mid ahaa nin inficaali oo ahaa cumar bin khataab dadka dagaalka badan leh ee mashaakilka badan leh runtii naadiyada la iskugu yimaado marka khamriga la cabo looga tago dhibtiisa darteed ayaa uu ka mid ahaa walidaalika waxa way maalintaasi way ku kacday dabeeta nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dhinac kalena waxa la yiraahdaa abul caas bin hisham ama amr bin hisham bin mughira oo abul jahl ah ayaa abtiruma u ahaa walidaalika waxa weeye ereyga hisham iyo hashim baa la isku qabtaa maadaama labadooda nimba abul caas bin hisham haba noqdo ama abul jahl oo magaratay haba noqdee labadooduba hogaankii sare quraysheed bay ka mid ahayd walidaalika waxa weeye abtiyaashi cabashadii badnayd ayaa raadaysay marka maalmaha ka mid ah ayuu cumar baxay si uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ula soo dagaalamo nucaym bin cabdillaahi nin la yidhaahdo ayaa la kulmay cumar oo aada u xanaaqsan oo runtii seeftiisii diyaar tahay oo runtii ku tala gashan in ama la dilo ama uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo dilo ولذلك وحوي ضد كان قوان كاذق بو كمدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه روايات كقروح يورانيان لكسوحوا أهالي المسلمة نعيم ولذلك وحوي سئوا أفوفتان هبابي عمر بن الخطاب أيولي عمر حقد أصعته أسوي هذا الذي صبع من قريش لكالدين تعصب ليمي ضد كير لبي أيان دونيا إن أرنكي سميل كصوتيريو ولذلك سئوا أوليحي أياولي أو أنت عاد أتجيس محمد بن عبد الله أو أكتي حمسين وإسلامي أو وقت عجيه أو زبير بن عوام وقت عجيه أو سعد بن وقاص وقت عجيه أو أكتي تقال كودا إن أما عاد وحدشة أما إن لجود لمو يعني إلى نتك جولي سنين مياني كلها بونين مركهرة إن أدو حكسو قبته ولا شا ينكي المعذر كأحيدين إلورين سعيد بن سعيد marka Saciid bin Sayd waxa uu kamid ahaa 10kii ugu horeeyay islaamay isla markaa 10kii jannada loogu bashaarayay buu kamid ahaa Faaduma bintul Khattab ama Jamil bintul Khattab iyaduna waxay kamid ahayd xaqbadii ugu horeysay ee rumaysay rasuulka kaleey salaatu wasalaam dhinac waa ka ilmaadeer Saciid bin Sayd dhinacna walaashii buu qaba culimada qaar waxay ilaahdaan Umar bin Khattab waxa kale iskaga sii xidhnaayeen isaguna walaashii buu qabay oo Aatika bint Sayd gabar loo dhan jiray ayuu qabay Umar bin Khattab radiyallahu anhu almuhim Umar wuu carooday waa baruntii hadii aad wax ka qabanayso horta inaad gurigaaga wax ka soo qabato miyaanay ahayn ba qalbigiisa ku soo dhacay tabeeta gurigii walaashii Faadima bintul Khattab ayuu baxay وفعلا علماء waxay leeyihiin markaasi waxa la joogay Khabaab ibn al-Ard saxaabigaasi ayaa la joogay oo quraan u akhriyay suuratu Taaha ayaa waqtigaasi saxiifad ah ayuu akhriyay Umar ibn Khattab soo galay Khabaab ibn al-Ard waa nin ducafadii muslimiinta kamida isagu markiiba uu isqariyay si aan Umar ibn Khattab u arag marka wuxuu cunaha qabtay baa la yiraahdaa Saciid bin Sayd أنت سبأت من دين قريش ما أديك أيا كجالوبي دينتي قريش أي لهيد أبياشين سدا يسدا هيد أيا ويل تبعته ولا شيء بأيكتي وبركة أيركتي نكيدو قرقير كشرو أيا واحد تري من بدلس أن يقول ربي الله إنه يلي إلهي با ربي يوكلي تبعته حلا أيضا ودرباحي درباح رتي علص وفعلا أئمة قار وحي ليهين وجهيدي أيادي كيمد فقالت أقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله وحي أدقو على العليسة الشهادة ده وحكستو عادي يشو وحن كلها هي أنقو حن رمين رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وكلي وحللو آمن سنة محمد بن عبد الله إنه يهي رسولك إلهي صوتر ودينتا أسولي بي إن إلهي وكلي هي وكلي قل عابده
عمر بن الخطاب marka horeba dareen hore quraanka ku jiray isla marka dadka waxna akhriya waxna quraankiina markii wax yar buu ka soo gaaray saxiifadii baa dhacday marka soo arkay wuxuu doonay inuu soo qaado walaashii Faatima ayaa ku tiri ha taabanin la yamassahu illa almudahharun quraanka waxa taabta dadka daahirka oo kaliya aan gaalada ahayn ee aan mushrikiinta ahayn ولذلك وحوي وإن أظهرت كور أنا تابن إلا أد إسلامته عمر بن الخطاب وصو قاضي وفعلا مركزو آخري تاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى انت بركي واخري بدرين كيسي اسبدلي ولذلك خباب ابن الارض ايو marka isqarinayay ayaa wuxuu arkay Umar inuu ay soo gashay qeyr iimaani ولذلك saxaabiga soo baxay خباب wuxuu leeyahay Umar ducayso khamiistii baan la joogay rasuulku kaleey salaatu wasalaam waa uu duceeyo wuxuu yiri ilaahay labada Umar mid kamid diinta ku soo darkaad jeceshahay ولذلك وحوي دعاء رسولك عليه الصلاة والسلام أذي كود عضي ومانتا وهبون إن أدرنتي إلهي قدرتي ولذلك عمر بن الخطاب وحده الكوتش ورسولك عليه الصلاة والسلام خبابة المامي وحد دار الأرقم بن أبي الأرقم بوتشوغا المخسومي حق بوصورك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصور رنتي ولي سيفتي الستة مركا مسلمين تدار الأرقم تشوكتا لما صعوته إن عمر بن الخطاب إسلامي إنانو إسلامي ولذلك وحى الله إلى هذا الباب كيبو قراعي سقو ولي سيفتي سيستا لقيت الصحابي بقى ميلي رد الله شكا يقول يا رسول الله هو عمر وسيفتي سيناء ديارته مركا النبي عليه الصلاة والسلام أو إن كان عمر مركا عمر يعني حمزة كتشل أو عمر محو يهي هدو عمر يهي بولي يعني هو يكفر بولي مركا حمزة بن عبد المطلب وعمر وهدو عمر يهين محويه وفعلا حمزة أيا دوني إنه بوح لكن رسولك عليه الصلاة والسلام بايليس كتشو مركا رسولك أو بحي عليه الصلاة والسلام رسولك وحو اسكو باقي يعني الحذر ولا الشجاعة وحالله إله هذا قيسي نمد وإن تاكتكس أي كتشرة يعني عقلية حكمة وإن تقدرته ومعنى ما هقيسي نمد وإن نفط هذا اللي مصو ولذلك وحوي وإن مركع دركته أو متحيزا إلى فئة قفك مسلم كأو حلو بني حتى مركع دركته مسلمين تقول لتشبيني إن حيل دقال أيضا كمركو قو أيين حيل دقال سميس التولي يوم الزحف قفك مسلم كي قال هذا مركع ليس هيو إنه دب إنه قضه ولا ديدي لكن وحل الله قال هذا مركع دركتين خساره بدنيا إن أتسميسه يعني وحوي حيلات أتسميسه أيضا ككل متقلينيسه ودي بقرشاء أي قفك اللوبني ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام وحكوت لك علينا السيف تنقبته عمر بن الخطاب نودي هركريوب النبي عليه الصلاة والسلام الباب كبر رسول كفري سيف تيسي جنتيجينا ويسكو قبت النبي عليه الصلاة والسلام حدد عمر وصارت إذا نكودي لدون أبو النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عمر ويستاجوا مركز رسولك قرتي إن ردتي وصعدا إنه قعنتي سكو إسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومركأ عمر بن الخطاب كشكيو رسولكم مو أحي وذاد همبلا وبقرة ساحذي ووحل كلام عاشي أن أغين وأن ديارهين حطي دقال قبصد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك وحوي دائما مستعد بوهانجر رسولك عليه الصلاة والسلام وأنا مركو الله عمر بن الخطاب ولي نم بني آدم يو قريش كمده oo awood sheegtay ama jirkiisu dhisan yahay ama quwad kale ilaahay siiyay oo awood u helay inuu gacantayda hoos u dhigaa muu jirin ilaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka mooyaan maalintaasi ayuu ka warramay oo laha maalinta markii rasuulku islaamay ee ana shahaadanayay ayaa Allahu sallallahu alayhi Muhammad u gacantayda hoos u dhigay saxaabadu runtii aad bay u farxeen حمزة وكجري زبير وكجري سعد بن وقاص وفعلا عمر بن الخطاب وكسو بيري ماشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
wuxuu ku soo kordhiyey taariikhdii muslimiinta xamse oo kale si gaara loo haystay laanno nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay dee adeerkii rumu u ahaa oo colaadu isaga meel bay u wada taallay isaga iyo quraysh laakiin cumar ibnu khataab wuxuu ka mid ahaa qabaa'ilkii xooga badnaa saddexdii ishayeyna maaha waa qabiilada afraad ee ugu awooda badan leh quraysh ayay ka mid ahayd walidaalika waxaa la odhan jiray reer bani cadi binu nawfal haddii reer bani makhsuum iyo reer bani umaya ama reer bani umaya reer bani haashim oo saddexdii reer ee ugu waaweynaa quraysh ay isqabtaan iyagaa dhexdhexaadin jiray oo maxkamadda ayay u hayn jireen walidaalika cumar bnu khataab radia allahu canhu miisadaa kalena wuu lahaa oo colaad isaga sii khaasa oo loo sii hayay may jireen mar allaali markii cumar bnu khataab radia allahu canhu uu islaamay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay wuxuu uhi yaa rasuul allah yaad jeceshahay inaan gaadhsiiyey islaamka seeftiisii buu markiiba la soo baxay cumar bnu khataab riwaayaadka qaar waxay leeyihiin abulcaas binu hishaam ama yani camar binu hasham oo halka ay isku hayaan abti ruma waxa uu ahaa abuljahl mise waxa uu ahaa abulcaas binu hishaam almuhim ayi waaxidin kaan kuu doonaha ahaade labadoodii mid ka midii u tegey oo albaabkiisii uu garaacay oo ficlan riwaayaadka qaar waxay leeyihiin abuljahl buu ahaa albaabkiisii buu garaacay markii uu garaacay buu yidhi marxaban ya bnu ukhti inankan abtiga u ahaayo soo dhowow faqaala aquulu lak ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah cumaroo sayftiisii u diyaar tahay waxaan kuugu imid inaan ku ogeysiiyo inaan raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhaha abuljahl bay saaciqad ku noqotay albaabkii buu xoog ku xidhay yani waxaa xumaaday tabban lak maa ji'ta bina wixii aada noola timid baa xumaaday buu yidhi dabete albaabkii buu xidho gurigiisii ayuu iskaga noqday halka abuljahl aan la awoodayn in halkiisa loogu tago cumar binu khataab sidaasuu sameeyey waxaa la cumar binu khataab radia allahu canhu wuxuu istaagay buurihii quraysh buur ka mida yaa macshara qurayshin faqad aslamtu lilaahi subxaanahu watacaala wabiyadi muxamadin waashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah qurayshii waxaa ogaataan waan islaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan raacay wax allaaliyo wixii aa hayseen oo dhan inta ay isu geysaan aniga igu soo daaya buu yidhi walidaalika waxaa la yidhaahdaa waa loo soo diyaargaroobay ilaa intii ay duhurka ka gaadhaysa ayaa cumar binu khataab iyo quraysh oo dhan ayaa dagaalamay ilaa uu daalay oo dabeeta uu meel iska fadhiistay cumar binu khataab radia allahu canhu ficlan arrintaasi quraysh culays aada u weyn ayay ku noqotay ilaa xad runtii tala dambe ay iskugu noqdeen xamse ay arkayeen oo 3 cisho ka hor soo islaamay oo abuljahl nabar gaadhsiiyey cumar binu khataab baa maanta islaamay ومع ذلك وحوي تدتك برهاديسي قريش برتنكيدي بو كقيلي او ليوانو اسلامني مسلمين بانو نهي دينتا رسولك عليه الصلاه والسلام بانو دورني اسلامتي وانو كتغني ولذلك وحوي درين باكعي ددكي اي اسو جيستان رسولك عليه الصلاه والسلام حقيس ولذلك waxa la yiraahdaa quraish ayaa shir degdega iskugu timid shirka degdegana runtii waxay yiraahdeen ku socon mayno in runtii arintu ay sidii hore ahaato walidaalka waxa weeye waa inaynu soo saarno qaraar cusub oo runtii aynu kaga hortagayno rasuulka kaleey salaatu wassalaam Utba bin Rubay'a ay Shayba bin Rubay'a oo ragii lagu diray dagaalkii Badr xaqooda inuu ugu tagi doonaaye ayaa yidhi war intaydan dagaalka ugu dambeeyay qaadin bal anigu aan Muhammad u tago marka rasuulku kaleey salaatu wassalaam ayuu u tagay wuxuu yaa Muhammad waad ogtahay dhibta adiga tolka idin dhexta Allah waxaan doonayaa idin dhexdhexaadiyo diyaar ma tahay rasuulku kaleey salaatu wassalaam wuxuu lahaa diyaar baan u ahay kelmadaasun hay ilaahdaan laa ilaaha illa allah muhammadur rasuul taladaydu waxa weeye in ummadda u talisaan islaam iyo diin ay ugu talisaan oo ay raacdaan bukuul rasuulku kaleey salaatu wassalaam ولذلك مرنا موديدين رسولك عليه الصلاة والسلام عد ولا أتماد وتراضى عن كل هذا ما عن وحكويدي وما عن كوريستو موديدين النبي عليه الصلاة والسلام مدكدب أي رنتي عتبة بن ربيعة ضدك القرآن كرنتي اللغة العربية أنا آدو يقلبوا كمدها رسولك عليه الصلاة والسلام
markii uu dhameystay buu yiri abul waliid ma dhameystay qaala nacam hadaba anigina ii dhageysay buu rasuulku kaleey salaatu wassalaam marka suuratu saad ay rasuulku kaleey salaatu wassalaam uu ku akhriyay ila xad runtii markuu la yiraahdo dareenkii cutba bin rubayca uu isbedelo markaasuu afka rasuulku kaleey salaatu wassalaam qabtay oo yiri kafaaka ya محمد وهلكا كوتشوج مركو أركي إنه يسبدليه عتبة بن الربيع وحو أتجي قريش أردن ولا بشني يلا باتنكي إن أتليني قريش وحول هذا الكاسماها هذا الفالي هذا الكاسماها هذا الساحر هذا الكاسماها هذا يعني أين نقانو قف بن آدمي وكهل ذكر وإلو قد وأكتين سلام كواحد وروح عند الله هي اسكدا يا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب حدو قوليستو اهلكي بينو نهو شرف بينوت حديك لنا ضدك كلي اسهلي دوناني انغو اينو دينو معنيده waxay go'aankiisu wuxuu ah war inagu aynu dibta ka deeyno ha ugu yeero dadka cidii raacaysa ha raacdo arintaas runtii way ka cadhaysiisaa Abu Jahl iyo ragii kale waxay arrinkaasi arrin la qaadan karo oo tala ah ma aha annaga ayaa tala kala haynay annaga nagu raac dabeeta runtii wuxuu maxaa haysaan waxay yiraahdeen Abu Talib bay noo tagina oo ficlan Abu Talib bay dooneen inay u tagaan Abu Talibna ka hor wuxuu arkay in arrinkii marka si fogaaday Quraysh maalin walba go'aankeedu uu yahay dilka rasuulka kaleey salaatu wassalaam iyo hoggaanka sare ee muslimiinta maadaama meel ay ku wada nool yihiin way rasuulku kaleey salaatu wassalaam gurigiisa oo guriyihii reer bani Hashim oo isku wada nabana ayaa muslimiinta uu ku hayay cidii soo islaamtaana isagay la noolay rasuulku kaleey salaatu wassalaam walidalik Abu Talib dhinaciisu ka shiriyay oo yiri waxa inagu soo socday sida ogtihiin Quraysh oo dhan oo soo socota reer bani Hashim oo dhan bay soo keenay inaga go'aankeenii hore ee ahaa aynu isbarbar taagno rasuulku kaleey salaatu wassalaam kol hadaynu amaano ku ognahay kol hadaynu run ku ogeyn كل هذه وحاو كاني إلا إمك وح إنه لبسنا آلي ترين لكن إنك مركا إسقى يعدي راسنيد بكهض ليه أينو يسقى تاجنو ولذلك ساسي كراعي وحارنتي حسد مضن قريشي مركا يسوت تجين وحيركين سانسانتي دسدي وحص عضان أبو الجهل باي سو دياري قرالو ململوقي أو رنتي آدياد وأضك وفعلا وحلا إلى هذا هشيسكي ونقبتينته ayaa waqtigaasi dhacay sanadkii toddobaad dhamaadkiisi wuxuu soo qoray waxa inoo balana hadaynu Qurayshnahay qabaa'ilka wixii aan reer bani Hashim ahayn in reer bani Hashim aan waxba laga iibin inaan waxba laga iibsan inaan xiriir kale oo hadii waxina dhex galaan inaan la xiriir la sameyn إلى حد وقالي الشرر كلمة قلي كره هذا وحكستا إن الإحمران إنا وحب لقي يبين كرين إنا وحنا لقي يبسن كرين إنا لقي جورسن كرين حتى هذه قار لقى قبنا يموحي هرا الله وضفره أي قوان هذا قار كود كشري قوان كاسي وحوك الصحيح عشان يلا باتنكي وحوك صحيح رؤساء القبائل قبائل كإن الله لي أنت وتري ليسي يعني نظام كل ما أنت مريكان كوي استعماله مركو الدنيا دي قبصدي أوردن مركا الدنيا المسلمين توضني مركا السودان وكله أو باترول كلا صباح ذي ما لويتو أفريقيا أوردن إنرجي وين ناس ما يصير رنتي إلكتريك ووتر كي أو إلا يمكن تشاينيز كي كانت يودي مريكان يروح أوردن كمارنتي وفعل السودان يعني هرمر بدن ويوحل بدلية ورنتي قالوا أوردن يمريكان يوحس أي رنتي كمارمن وحرنتي ممكن مشكلة الله هي تاسوي لأنه ما دوني أن ممكن نريد هيستا قف سكوف الناضو ومسلم ودين تيسينا هيستا آديات بيقوا هذاك وين وقف كوبا هي وفعلا يجوا أي حرقة وهي أدوب أبو الجهل قوان كاسو كقاضي هشيس كعنا قبتين تسمي وأفريتهم بقولوا صلوات كور وحمانت عينو أرجع عنا قبتين هذا اللي الشيء وحلقوا في رسولك عليه الصلاة والسلام صحيفة دي بالله قاضي وحلقوا قريبا لا يرهذا أستار الكعبة كعبة تيرر كيدي تيركي أجو مطنا أيا لقول نبي بسمك اللهم قريش إلهي ويرحم إسرائيل ما عاجبا إلهي وكبلا بينا أي كبلا بين تبت مركزا
heshiiska intii kalena sidii loogu qoray iyadoo la wada saxeexay 3 sanadood oo gowa ayaa muslimiintu ay halka ku jireen oo reer bani haashim oo dhanna waxa la aliyo wixii raacsanaa rasuulku kaleey salaatu wasalaam ee la tacaadufay iyagana cunaqabateen lagu sameeyay ila xad runtii ay gaadheen riwaayadka qaarkood sida ay yiraahdaan in ay cunaan geedaha laano lacagtii waxba ma tarayso waxba laga ma iibinayo waxba ma iibsanayo raashinkii oo dhan ayaa laga joojiyay wixii hore ay haysteen mooyaan marka saxaabada qaar waxay yiraahdeen faruuriyo ayaa dabnaha yagii ka samaysmay sidii aanu ma garatay xataa geedaha iyo wixii aanu isticmaalayna darteed walidaalku waxa la yiraahdaa tiro kooban adigu habeenkiiba khadiija bint khuwaylid mesela ehelkeeda oo kale adigu rag qaar isku kalsoon oo awoodna quraysh ku lahaa ayaa qaraabo ahaan waxoogaa yar u keeni jiray oo sidaas rasuulku kaleey salaatu wasalaam walidaalku waxa weeye khadiija aad bay u xanuunsatay aba talib aad buu xanuunsaday labadoodaba xanuunkooda sabab waxa uu ahaa raashinka yar ee soo gala ayay u qadimi jireen rasuulku kaleey salaatu wasalaam isagoo rasuulku ogeyn walidaalku waxa weeye si ay u ilaaliyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam naftoodana ay runtii raashinka uga ilaaliyaan